والصلاة والسلام على طه الأمين في كل وقت الواحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفتحي بكاعو ودل إيه دبد بإذنك السلام يسا ومدر جبوتي waxa salaamaya caaq Ismaaciil waxa salaamaya Itapaqalel waxa salaamaya dawladda dhammaan baan salaamaya salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh warkiyo baxardaada isagiyo boqshadaysan raadiyoina bukaaco hal laga dhageysto waa qayladaan waa badbaado qaran waa dhilooyin waa dhacdooyin joogta oo soo noqnoqday siday ballantu ahayd caaq Ismaaciil waxaan ku bilaabayaa gadiidshalladiyo Cumar waa shahiid gacanka xaq daran baa dishay maleeshiyaadka uu magafe hogaanka u haya ee booliiska ayaa wiilka yar ku dhagaroobay waxa falka foosha xun loogula kacay amba soo ku mutaystay wax cadaalad iyo wax garsoor midna idin kama hayno qaranko isku duuban iyo hooyadii qoran waxaan u heelanahay waa cadaalad iyo garsoor dhaba iyo gacan ku dhiglayaashii oo cadaaladda horgeysaan intiiba wad ka gaabsatay caaq Ismaaciil waxaad u xaglisay cadaalad darrida daladii cadaalad darridaad noqotay shacab weynaha reer Jabuutina waxay ku leeyihiin xal ma haysida xilka wareeji waayo xilkii aan ku dhiibanay amaanadii aan ku igmanay wixiiba waad garab martay kitaabkii aad baalaha jartayna waad garab martay oo wixii oo dhanba bustahaad saartay marka waxa nagu waajibay inaan mar walba ku niraaho xal ma haysida xilka wareeji waa dabuubta qayaxan ay umada reer Jabuuti kula horjoogaan umada reer Jabuutina waxaan ka codsanayaa daliya dibad markaad gadiidshalladiyo Cumar maqashaan faataxada umar waa shahiid gacanka xaq daran baa dishay in ilaahay naxariisiisa janno ka waraabiyo تامركان كجدبو واحد نجاها يستان ليتنا فؤاد يوسف علي دوليها عيدا مدى عيركا لبا حدقلة فؤاد يوسف علي أياد ولي قباط كو هايستا ولا قد دايرين يا حال عافماد كيسونا وآد أوليتا إساقو ولي بسمية عنتك جوكسي وحا علو يقانا أفكا قلات غيف دفان قفك بلا آدن كي إهادو عنتك جوكسي سمية أم بغيف دفان cadaaladu si degdeg ah ayay uga jawaabtaa laakiin waxa halka ka muuqata caaq Ismaaciil inaanay cadaalad jirin oo ugu tala gashay yarka yar inuu halka ku dhinto waayo inankii adeerka u ahayd Mabutu Sese Seko ayuu ka hor yimid daamanka Buurnay halkuu fadhiyay ciidamada cirka marka cadaaladaadii iyo dawladaadii waxay noqotay waxa aan arkayno ee maragmadoonta ah ee raadkeedii aan ku taaganahay ma taasaad oranaysaa madaxweyne caadil aan ahay madaxweyne alla ka baqayaanahay madaxweyne garsooranahay madaxweyne dhabaraanahay dawaka dhabarnimadaadi wata cadaaladaadi wata alla ka cabsigaagi inaan yaro wiilkaaga caynaasho la eg wax alla wuxuu sameeyay aanay jirin dulmi diiday dhibaatadii loo geystay idinkoom kaba hadlaynba oo aasay oo masaxay oo isaga dambiile ka dhigay isagoo dulman dambiilayaashiina aad ku sii daysay magaalada oo tiri togayga iyo tagoogayga ku meera anaa inii fadhiya meesha maxay ka dhigan tahay taasi caaq Ismaaciilo maxay ka dhigan tahay ma noo sheegi kartaa de waa qabyaaladii oo qayaxan oo nadgeed ugu soo gaban ayaad rabtaa Fuaad inaad ku kharajiso laakiin Fuaad xagga Ilaahay buu ka noolyahay mid kale waan kugu daraya inta cishay cuntada laga qaadayay oo ridisii hooyadiiba ku sheegeen dagaha jalaq u siin maysido waan ogahayo dagahaagu laabta uma daloolaan laydhay u daloolaan oo inta xun bay soo qabsadaan dagahaagu wanaagaba shaqo kuma la caaq Ismaaciil marka haddii aad damiir iyo dadnimo leedahay waxaasa dalkii ka dhacayee maad inuu damqatidoo diirtid maad inuu dadka u soo dhaadhacdidoo tidhaahid war waxani waa sidee waxba kuguma hadhin baan u malaynayaa damiir iyo dadnimo kugu hadhay ma jirtay kursigan baad caashaqday hankaaguna reer buu dhaafi lahayahay da isma qaadaan kursigan caashaqay hankayguna reer ma dhaafaya da isma qaadi karaan meeshani waa qarannimadii iyo dawladnimadii iyo saansaankii dawladnimada sifadiiba way ka baxday xaafad adigu aad leedahay iyo jamhuuriyaddii Jabuuti ka dhigatay deetaana kaama yeelano caaq Ismaaciil wax laga yeelayo laga ogolaanayo ma aha barqaad caraabi barqo yaad cagta saari wadada taa ku talagal mid kalena waan idin sheegayaa reer Jabuuti Fuaad inuu 15 cisho cunto ka joogsiga sameeyay maxaa ka horeeyay maalintii uu cajalada soo tuuray uu hadlay uu dhibaatadiisa umadiisa u bayaaniyay haf baa la siiyo halkii baa la geeyay halku waa halkii aad garanaysiin de halku waa halkii dadka lagu shuqlayay lagu shiilayay lagu cadaabayay halku waa halka Xasan Saciid mafaatiixdeeda haysto Xasan Saciid khayr halka mafaatiixdeeda haysto SDS-ta wala baxeen CID-da meesha wala baxeen weeyaan yaa lala tagay yarkii oo laba cisho lagu soo haystay caradii ciilkii uu ka qaaday buu isaguna cunto ka joogsi sameeyay
nin damiir iyo dadnimo leh maxaad ku samayseen maxaad ka baadhayseen ma macdan baad ka baadhayseen ma batrool baad ka baadhayseen maxaad ka baadhayseen qaadato oo geysay SDS ka soo celisay 2 habeen dabadeed maxaad ku soo samayseen inanka waa in la idin weydiiyaa waa la idin ku xisaabtami hadduu caawa dhintana waa shahiid idinka u qoolan Caaq Ismaaciil ku talagal adaa u qoolan iyo ragga aad dhashay wiil la xumeeyo leeyahay wiil la dilaana wiil la dilu leeyahay ku talagal waad ogtahay Saddam iyo Qadaafi ragoodii halkay mareen ciyaar maaha kaftan maaha aday kadeed kugu noqon bari kadeed bay kugu noqono adaa kurkursanayo carari karayn ayaa dhulka lagu bacbaacin aday ku taallaba waxaad mutaysatay markaa maanta Saddam maxaa u nool isagu kuwa dhalay iska daa kuwa caruurtiisu dhaleen baa la galaaftay albara tigi biraasal bari baa la yiri Soomaa Qadaafina lamid Allah wada naxariistee tiiba kugu soo socota adigu kaaraan haystaayo ciidan beeleed baan haystaayo gaar Republican iyo jeerta ayaa muxuu ahaa kuwii kale halka hor ku fadhiya maagan ciidankiisi badda miraafay waxay subagle gaarda koodka iyo gaar Republican ka igu filan baad ku faantaa kuwa barqa la leefiye qarankani hadduu kaco saacad nagu qaadan maysa anaga harajaan waligiin ba ciidan isku meeriyay imsaas ciidan la isku meerin imsaas ciidan dadka lagu haysan waa su'aasha meesha taala Caaq Ismaaciil haddaad cudud iyo awood isbaday awood rabbi baale cududna rabbi baale dalkan iyo ummadan iyo calankan shacabkan baa la adciilay sid cududda ugu faantay markaas kuwii shalay ku doortay haddaad maanta sidaa ugu maashay oo ugu hambaysay maxaa noo haray inaan iska ka wareejinaa noo hadhay wax kale nooma harin marka dhamaanta iyo Fuaad baan nahay waxa aad Fuaad kula kacdayna dhamaanta iyo waad la yeeshay sidii lagugu maalay ugu maad hanbay Reejibuuti Caaq Ismaaciil marka runta ku sheegaan hawayaan laga gaban indha Ilaahay maliid bashar baatay bili aadan baatay xariya kaadila tahay maxaa tahay adu Caaq Ismaaciil baaba tahay mudane madaxweyne imsaan ku haynay ka joog ka daa sidan ma wixiiba waxaad u qaadatay riwaayad iyo musalsal iyo Koshbi show riwaayadiisi Soomaa waxa wala iskala baxayaa adeer caruuraha iyaga aad dhibaataynayso ee halka ku haysatay cududda ugu faantay Fuaad wuu liitaawuna bukaa wixii aad ku soo samayseen maalintii dhaweedeed qaadateena waan ogaan doonaa war jiraaba cakaare warka waan keenaynaa waa la keenin warka waan ogaanaynaa Caaq Ismaaciil waligiinba qarqariya radio bukaaca way bayaamin maqal iyo muuqaal bayna ku keeni aniguna Fuaad kama harayo iyo inta ciilan oo dhan iyo Yuusuf Maxamed Cali Gabase iyo Fuaad Yuusuf Cali kama harayo iyo qaarka badan ee ciilan ee maaragtay aad ku xidheen gabood kama harayaan waa caruurtaydiida waanu damqarayaa jiirka igu yaalo waa labadaydii garab marka managadna indhatireed curadadayada ku cuni gabood kuwaagana aad odhan taxtaxiyaan amalkiini waad haysiin amalkiini idin ku fila farqu idin ku xidhay inta hadhayna anaga idin khatimayno idin eriyanayna waad soconaysiin waanad ogtahay inaad socon joogi maysid ku talagal waad soconaysaa ku talagal Fuaad waad eedi fagaaruhu ku keenay foolxumadaadina way iftay marka inaan ka yaree miskiinka ee saaxiibul ciyaalka ee waxa la wuxuu geystay aanay jirin eed ka daba lulateed cudud ugu faanayso siduu wahiib ula hadlaa siduu isaga wahiib u dulmay wali maadna orin siduu wahiib isaga u dhibaateeyay wali afkaaga lagama hayo siduu wahiib khaladka u galay wali afkaaga lama hayo wahiib firin baad u gelisay inaad firin u gelisay tala noo marxaatiya oo tii qadar baa noo marxaatiya qadartii dalkaaga ila tariye ka hor joogtay iyo carabiga uu kugu diray iyaa ka marxaatiya uu saraakiishooda diyaaradaha wada dharbaaxada kala daalay inuu Caaq yahay isna waa kaade inuu isaguna Caaq lambarday yahay waa kaa cad qoniima ku jira adna marxaati baad ka tahay laakiin waa diidaysaayo magac baad ku dhimanaysaa kani adeer baan ahay waxba lama yeeli karo dalkani adeer iyo eedo gunduhuna jaray qaatiyaan baa ka joognaa waanan ka kacayna waanan ka bogsanaynaa hadaan dhimanuun amaanada hayno intuu xusulka iyo xabaalka sareeyana waan kugula xisaabtamaynaa dhawaaqayaguna meel dheer buu ku dhacay hadaad moodayso inuu meel dhow ku dhacay dhawaaqayagu meel dheer buu ku dhacay waana waxa ku dhibay eed sakatiga la qaaday eed la daybadoon ismaantada rad UN-ta la hadlaysay waadi televisionka hortaagnay ma arkaysi wixii aad sameynaysaa Caaq Ismaaciil waa daymoonaysin xad la daymoon sakati baad qabtaa sakati baad qabtaa daawada Reejibuuti markuu caawa hadlayay UN-ta la hadlayay walaha xafladii 75 jirkii aan wada shaqeynaa maada lagu la shaqeynay waa laga wada hor yimiday qool baad ku xidhan tahay edag baa lagu galiyay adduunkii oo dhan kaasaad ku leedahay kaalay waan wada shaqeynaa yaa la kula shaqeynaya
ayaad la shaqayn kartaa adigii baa lagaa shaqaysto lagugu shaqaystaaye markaasaad doonaysaa inaad iskaga kaaya dhigta nin waxaya annaga caqas macal ilaahay ka baq dalkan waa dumiso waxba nooma harin waxa noo haray inaan katiinad kugu qabano katiinadiina waa diyaar maalin dhow waa lagu qaban ha dheeraate ha dhowaato laakiin waxaan ku sheegayaa fu'aad waad eeday waanad eedi doonta kaana hari mayno masiibaanan hoosta kuu gelin nafsi baan hoosta kuu gelin kaa aad fu'aad ka gashay dushaadu ka dilaacaya maalin dhow annaguna dhammaantay fu'aad baan nahay waxaan idinka codsanayaa ummadda reer Jabuuti dal iyo dibad fu'aad ha loo duceeyo fu'aad ha loo duceeyo bardan salaama allah uga dhigo dhibaatada iyo cawaaqibka ay marinayaan ilaahay waxaan uga bariyay malaa'ikta ilaahay ba xamaynaysa oo ilaashanaysa haddaad idinku ugu tala gasheen xaqi aad ugu tala gasheen rabbi baa halka ku xamaayadeenaya oo ku ilaashanaya laakiin idinku waxaad ugu tala gasheen qabri inaad idinku ka horeyn doontaan rabbiga weyne waaxida garan marka idinku halkii aad ugu tashateen ilaahay idinku lama jire waa ka maalin walba rabbi idin qashifayade waa idinka khashifan ee fadeexad meel walba u taagan ee ceebtiina iftay marka waxaan ku sheegayaa Caaq Ismaaciilow hiro baan ku leeyahay maanta laga bilaabaan hiro ciyaalka ka oran jiray ma carruurta yar hiro maanta hiro baan ku leeyahay dib u dhac weyn baa kugu dhacay ceeb baad ka qaaday inaan ka yare miskiinka ee saaxiibul ciyaalka ee cududii qabyaalada ugu faanayso ee buka ee cuntadii ka joogsaday ee ciil iyo cara la duuban ee raganimo ku jirto ee ilaa maanta uu sida ay yahay wali aan madaxa hoos u dhigin ee doonaysa inuu ligihiina yimaado de ligihiina iman maayo aakhiru tagi tii rabbi hadday u timaado aakhiru tagi taana waa la wada sugayaa geeridu waa xaq nin walbina hadda way saaranta idinkiyo isaga allah garanin horeyn idinku isaga aad u qorshaysan inaad ka horeyn doontiina ilaahay baa garan raxmaanka garan idinku kuma tala jirtiin de Israa'iil waad ka sak waad sindhiin markaad naqashiin qof baa dhintay qof baa sidan waa idinka daymaday wada yaacay fadhiista meel oo dadka ka haro ina ka yarsiida oo xishooyo wax isku fal taamarkan ka gudbo fu'aad hooyadii iyo oridiisa iyo walaashii iyo ehelkiisana waxaan leeyahay dhamaanteen fu'aad baan wadanahay laynagama cudud sareeyo ku tala gala libinta inaga aliyo guusha hadii ilaahay yiraaho waan ka baxaynaa dhibtan iyo silican iyo saxariirtan layna mariyay ciidan iyo calankan inaga u aayeno inaga ale inta ilaahay ka sokaysa inaga layna dulmay inagu xaqeeni ifaya hoos yeenan madaxa u dhigin kor aynu ahaano kor inagu kuwii sareeyaynu nahay hadii ilaahay yiraaho waxaan la hadlayaa aan ku sheegayaa haddana ood naga haysataa Yuusuf Maxamed Cali Gabase Yuusuf Maxamed Cali Gabase waxa lagu shirqoolay oo loo xiray maanta aan ku sheegaya dhagaha iyo amaahi Caaq Ismaaciil bal dhagaha 2 daqiiqo iyo amaahi aan ku sheegay xaqiiqdu siday tahay Yuusuf Maxamed Cali Gabase albaabka ma ka furi jiray haddaad ilaahay ka baqdo weeyaan ilaan wasdiidsiin kulay waan ogahay albaabka markuu ka furo inaan ka yar sababa ma ka oranaysa mise kamaad oran hadalku halku ka guracan yahay baan ku tusaya laakiin damqan ma sidoo damiir ma liiday dhageyso aniga wax badan baad iga maqashay marka aad tiraaho sababa albaabka ka furo ayaad baabuurka fuuleysay sababa baabu ku dhintay dayarka yaa ku dilay aba jahal baa ku dilay oo shalay dhulka yimiday waxa la isweydiiyay baba waxaad uga leedahay inaan ka yar sida yareen naxariista la aad u salaamayso filim baa loo aloosay waxa la bukaacu sawir u diray telefoonkiisii baa la qaaday waa la waayay waxba wax allaaliyo wax laga helay aqoon iska daa isawiro isoo diray aqoon iima leh ilmaha yar yani aabihii baa yaqaan iyo hooyadii shifo laakiin ilmaha yar yani ma yaqaan de aabihina wuxuu ugu yaqaanaa de aabahay buu la shaqayn jiray sadad buu la shaqayn jirtay Maxamed Cali Gabase adigu kula shaqayn jiray inta yar baad sabab baba ugu oranayso naxariis ku muujinaysa ilmaha yar ee hoostaada joogay maanta hoostaada lagu cunay aba jahal wuxuu ka xanaaqay iyo kaad adeerka u tahay ee maartay Marvin Gaye talaaba ee dhulka shalay yimiday sidoo ina ka yar baba uga leeyahay waxba waa uma ahe xagay iska salaameen xagay wax iskaga yihiin qorshahaas aynan ka yara loo dajiyay halkaasuna ka dhintay sidaasaana loo dilay ereygaagana lagu dilay ina ka yar qof kaste oo si naxariis amba si islaamnimo aad u salaanto qoriyaha la daba qaataa ficil baa lagu dayaa waa la faqooqa fooq dheer baa la fulaayo waxa laga tuura haadaantii laga tuuray buu yarkii ku jira maanta Yuusuf Maxamed Cali Gabase taasuu ku dhintay aadna waad ogtahay ee ilaahay ka baq oo bal arrinka daba raacday hadaad damiir leedahay hadii kale wixii lagu shubaba qaado simkaar baad iska noqotay aday ku taalay hakaar piece baad noqoto wixii lagu keeno ee lagu shubo umad horay la hiraacida ma hada xaalku sidaas ku dhintay ina ka yar Yuusuf Maxamed Cali Gabase albaabka fakinani wacdi
baa caaq ismaaciil maxaa kiya sabab baba yibara wanina ka kar xugsuge tamacan garal rabe yusuf maxamed ali gabasi tahteti numa siini warsano anina albaba ka ki yududa iye abajaha laakiin albaaro yimete ismaaciil ibraahimke maxamed jaamacay marvinge talaabo ka kiyanimo kimal baaro yimete anina albaba ka ki yududa amanuku ha heeb qurama wadaaqtiin isku qolo maaha sidoo baaba uga oran karaa baa leeyahay waa reerkii qabyaalada xambaarsanaaye xiimayad xaafada ku haysata deherajaan iyo jeerta dhex fadhiya ciidan beeleedkiide ayaad dhex geysay in ka yar Soomaa el cid kale ba ogolayn ku eedan loo yahay iyo ku adeer loo yahay waxaan ahayn hay'adda benda way ku aw lagi benda mood fly hooyo u sheeg dayarku waxa soo ku dhintay adiguna maxaa tiri ayaa taswiir buu diray radio buka adigoo dhan bay ku haysaa sawiradaada ee dambayna kala hayn hay kugu fali maxaa lagu fali aqalka caynaashana de ummadoo dhan baa aragtay maxaa loo qarin waa hantidii dawladda iyo ummadda laga dhisay caynaashagu xoolaa inta la ka keenay marka inaan ka yaree duleysay ee aqal inankaygu leeyahay buu sawirkiisii diray lagu keenay de halkaas ay ka dhacday sheekadu haddaan aqli leedahay weeyaan caaq ismaaciil inaan ka yaree miskiinka ee shalay aabihii rafiiqa ahaydeen ayaad maanta sidaa u gashay marka maxaa lagugu aaminaa maxaa lagu dhiibtaa maxaa lagaala hadlaa de waxba marka nadaaf hal ma haysid xilka wareejiyo iska soco weleele waxba nooma soo wadidanaga on darxumiyo silic iyo saxariir hayni ka kac meesha oo nadaaf waxyeeladaada waan ka dharagnay dhibtiina waan ka dharagnay khaatiyaan baan niga joognaa dalkan iyo dadkani weydin ka ooyay yasir allah yeyga iyo dugaaguba yurta way ku cararaan baan maanta leenahay rajabutow yasir allah yeyga iyo dugaaguba yurta way ku caran kuwan yur baan leenahay cirka ma gaadhnay dhulkan cuskana yur waa yey iyo dugaagna maxay ku cararaan de yurtay ku cararaan iyo yaasiin allah yasir allah leenahay yasir allah yeyga iyo dugaaguba yurtay ku cararaan yur oo nadaafa oo isdabagala oo socda yur baan leenahay yur meel kastood martaan yur waraabe yur intaan baynu leenahay yaasiinkaan ka qabsanaynaa kuwan ilaan waa yey iyo dugaag waa idinka arkaya hadday dad bili aadama yihiin caruur yaryar oo buko oo jeelka ku jira masaasaa loogu daawan lahaa laguma daawadayna dadnimadii iyo damiirkii baa ka dhintay marka maxaan sugnaa inaguna waa inaan fadhiga ka kacnaa arrin kale jirta oo bisha 18keedii la sameeyay 18keedii reer Djibouti inta adiga ku diidan ee u badan bulshada ayaa rabtay inay muujiso oo ay cabirto dareenkooga 15kii bisha ayaa waxa la galiyay ciidanka alert waxa la yiri kama soo bixi karaan xiriyaha waa in la ilaaliyaa 18kiina magaalada lagu waabariistay si ayna dadku u soo bixin oo ciidan lagu daadiyo looga baayay inay dadku raygooga cabiraan de kuwii adigu garanada u soo xidhay ciidamada ah waad ogolaatay shicibka society civilka ku nacsan maxaa u diiday inay soo baxaan maxaa u diiday inaan lagu rabin baad xaqiiqsatay ma inaan lagu doonayn baad ogaatay maaha de imisaad shicib xabad iyo kaara ku hayn madfac imisaad ku hayn imisaad xabad dhoonta u saarayood ku hayn de waxba 4 cisho weeyaan laakiin waxaan ku sheegay ciidanka maanta annagana la hordhiya xabada nagu haya bari annaguna raacaya de ciidanku maxay haystaan way cagaagayin way cawlan yihiin waxa ma haystaan way gaajoonayaan darxumiyo silic way ka dhargeen kacaawa bood dinto suuqu xaaba ciidan dawladdu aha waligeed lama yidhaaho ya darxumada iyo silica badayde waa dawladdaada iyo saldanadaada maaha iyo xilka ay kitaabka aad baalaha jartay ma de waka annaga waa noo marag inaad diiday dadkii ku necbaa inay soo baxaan ee ku diidanaa ee noo osankiya mondaa ku lahaa waa diiday inay soo baxaan waxa aad ka baqday inay qalbadu ku dhaqaaqdo oo aad dadka aragto khalqullah markay soo baxaan ay ku ilaahin kuma rabno laakiin way imanaysaa imisa xabadna lagu hayn imisana la caburin reer Djibouti ciyaarta si kala aanu dhigayna xeele xabata sooda sameeynayna warkooga ka bax kuwan inaga ka sarreyna way daala dhacayaan runtaan ni sheegayaan wax laga baqa male indha laga baqana male kuwan way daala dhacayaan way sii socdaan yaa raayix laati ka tiral fadaayix baa ku leenahay caaq ismaaciil waad sii socotaa cirib barakale nagu dhaaf oo xoolaha iyaga iyo xaq iyagana dhig ilaa kugu dayn mayno ku saamixi mayne xoolaha adimka xaraashka la joogtiin aad iibinaysiin ee doonaysiin dadka inaad ku camaysiin qofowna ha ka iibsan xoolaha ay daadahaynayaan ee doonayaan inay dadka ku camayaan ee lacagaha gurtaan taa waan kaa diidnay marag baa naloo yahay maanta adduunkuna wuuna arkay inaad adiguna ciidankii soo saartood garanno u gelisay
annaga oo rayidkii oo doonayna xaqayaga inaan u soo baxno adduunka tusno inaanaan ku rabinna in qori caaradii albaabadana loola taagnaa taasi guul bay inoo tahay reer jabuuti in laynaga cabsooday waa laynaga cabsooday dheh caaq ismaaciil maxaa taana odhan waad naga cabsootay dee haddaad naga cabsootay maxaa kugu waajiba dee iscasil waad fashilantaye ilan dadkii aad xilka u haysay baad ka baqday maaha iscasil dee horeyba waad nooga baqayso waata lagu ilaalinaya lagu barbarooraya waxba nooma haysid annage iska soco caaq ismaaciil iska soco arrin kalaa jirta cali sabiix bay kasoo yeedhay waa dhalinyaro yaryar oo maalintii mudaharaadka bishii 4teedii bishii 6 2020 mudaharaadkii ka dhacay cali sabiix ayaa waxa ku dhaawacmay yarka la yiraahdo Mustafa Maxamuud Cabdilaahi oo loo yaqaano City Boy iyo walaashii Rayaan City Boy miis jaadla ayuu ku shaqaystaa waa jaad buu iibiyaa miis buu fadhiyaa inankaasi isagoo miiskiisii fadhiya ayaa xabad lala boobay 5 xabadood baa ku dhacday afkiinana waad ka maqli doontiin maqal iyo muuqaalna fiidiyoga waad ka arki doontaa caaq ismaaciil waa ilmo yaro caruura ma shaqaysan karayuu ku yidhaanu waan la xabeelay haddaan reerkayga ina yaro jan mariya ayaan ahay buu yidhi haddaan guursaday walaashayo qadadii ii soo wadayna xabadii baa ku dhacday buu yidhi 4 baa layga saaro wali xabad baa igu harsan buu yidhi dee mag baan doonaynaa buu laydinkaana laayay askartaadaa laysay ma ama maleeshiyaadkii magafaa laayay ma dee waad maqli inaan kaa yar wuxuu ku hadlayo dee sidii nidiida oo isbeen fariimo oo dhaha waa beentii haddii kale orda ciidan u dalbada oo sidii niida ku fayliya ciidan ila wax kale ma haysiin oo tala kale ma haysiin aqoon kale ma haysiin iyo dadnimo kale ma lihidin ku fayliya ciidanka waa ka isagoo hadlaya Mustafa Maxamuud Cabdilaahi dhageysta waa kaas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صباحنا دريت راعي الصبيح ومظاهرات معلش تطلع معرفتي أنا جو حاصلة ومش جالي يديني وشقي سنة يا ولا شيء ذي وشنا بيقول هذا إيه كان تو اللي بيجي تطلع بعمل أنا جو شنحب ويروح علي وحدنا إني كان لبض يبيجي تو ومحوها غريب أنا كمان يقول لنا يوم واحد قلب سنة يقولني وشقي سنة يوم ما هذا إسلامي هنا أو شقي هنا محوها واللي حاب بالني ما أنا شقي سترنا هذا ما تقول قل هنا واللي حاب بالني وحما شقي سترنا وحاسن لما قرنا حقيني ودورنا متيني ما وصعنا متيني هنا لصيو حقيني هنا لصيو وحاط ضاوعنا ما قرنا واللي حاب بالني عليه ولا شيء وشناد بدتو جنا حبيت وبحد عليه وطبح عليه وحاسن لنا ما قرنا أنا أقول شقيسيني جامي سافو شقيسيني حقينا هنا لصيو وأنا مقلية جاد ميسان كل شقيسنا يقول ولا حاب بيري تحقق الله يسيري وحكون أنت ما قرنيه هاي محاضرة عاق إسماعيل ومصطفى محمود عبد الله وعروتي عسجو قد عيشي العكت هوستي دقليسي واك هذا يسقون داوع سؤال صورني يسقون داوعنا وانا تصينا وحي ادم ببستين وبنتي راهين دي وكا مانتا الهي بيعنا يه هو سيرada adi reer dide isdabadidayay ee u socday cali sabiix ee doonaya in lagu soo dhaweeyo caleema qoyan dee dhiiga baa yaala iyo dabdarada iyo falxumada caaq ismaaciil shanta gobol iyo magaalo madaxda meel aad u roontahay male wadanigii baa sidaa u ciyaya ma shaqaysan karo yiri waa wiil yaro caruur oo curdina oo maanta guursaday ayaad xabad ku garaacdeen dadkii shicibkii masaakiinta ahaa meel walba maxabad iyo gumcun baad la horjoogi dadka ood ku layni dee taa weeyaan dowladaadii Soomaha iyo ciidamadaadii carbiska ahaa ee shicibka u carbisay ee magafe horbooday aygii balaqo Cabdilaahi Batara Cali Caruur Cabdilaahi Maxlal waa waxa soo midho waa isaga dee ma cid kala waa wakaade dhiiga iyo dabdarada iyo falxumada baa socota ay shicibka masaakiinta alaynayaan ma taasaad adigu qaadan kartaa de wiilaad dhashay ma hadda gabadhaad dhashayna ma dadka la laynay waa shicibkii miskiinka ahaa de caaq ismaaciil de ma kugu daynaa ma kugu daawanaa waan ka ridaynaa de waan ka ridaynaa waan ka dhacsanaynaa ciidayada iyo calankayaga waan kugula xisaabtamaynaa waa ballan ninkii nool in gabood lagu geynaday waxa soo falaaba ku yaaliyo dhiig iyo dabdarre ilmaha yar ee caruurta ee shaqaysanayay ayuu dilo yuu dhacay ayuu wax u dhimay miis jaad buu irsiqiisa ka eeganayuu dul fadhiyay oo xabad ugu geysay oo shaandha kaga dhigteen shabag kaga dhigteen waana darki doontii dhiigiisa iyo dhul dhamaaday fiidiyogaad ka arki maqal iyo muuqaal radio bukaaco magaalada Jabuuti meel walba taagan yahay shanta gobol iyo magaalo madaxdu taagan yahay tawaka daawo ku quuso ku qargooso waligiinba been aloos iyo waxa isbeen fariintaan baa taqaaniin arrin kale waxa jirtood ka arki doontii fiidiyoga ninkii magafe ayaa finitarays leeyay qandaraas baa la siiyay waxa leeyay waxaad dhisaysaa
trottoirkaad baafiya saaraysa waa businessman amniga dhan booliiskii amniga sugayay iyo kamyoonkoodii isagoo jaajuurkii laga gurayo indhihiinaad ku arki doontiin reer Jabuuti nadartu baa tashuufu de fideogaad ka arki doontiin anigu waan ku daba taaganay batadaa iska batadaale iska bowbowle magafe anigu xaqii baan keenaya wax walood meel dhigto talaabo kastood qaado waan keeni ciidankii dawladda ayuu ku shaqaysanaya baabuurkii dawladda ayuu ku soo raraya batroolkii dawladda ayuu ku shaqaysanaya caaq Ismaaciil waran de maxaad noodan waa daki magafe amahlal wakaade booliiskii qiimihii iyo sharaftii iyo karaamadii ay lahaayeen raggan in ciidan booliiska ay yihiin ciidamada dawladda uu ka saaro kuulib uu ka dhigay isagu leeyahay kuuligaaba ka sharaf roon oo ikhtiyaar leh oo markuu doonana shaqo taga markuu doonana ka taga kani ciidankii booliiska ah sharaftii iyo karaamadii iyo sumcaddii buu ka qaaday waa adiga arkaya de say u ciilan yihiin u garba yaryar yihiin ay uga gurayaan baabuurka ana toolay jaajuurkan halku ku soo sameey xira uu nagaar ku leeyahay jaajuurka la samaysa marka makaasaad aamintay oo dadka doonaysa inaad u loodiso mukhallaska idinka de mukhallas biidin yahay xaafadiina geeya oo haramuus geysta harajaan beerta idin waraabiyaan horaan kugu sheegay hayde uma qalma meeshan uu jooge wuu ku fashilan yahay lacag uu beeriyanayaay dadnimiya shakhsiyad uu leeyahay uu ku kala wado ma jirta de inuu askar ururiyo dadka bacsada dadka laaya yiraaha maahe iyo maruu sidaa wax u boobaya de wadiga arkay waa nin dhan oo colonel aad tiri colonel oo xaal qaado markay isaga joogtadii colonel oo xaal qaado markay isaga joogto magafe aygi balaqo Cabdillah Caruur Ali Caruur aygi balaqo magafe Cabdillah Batada maxalal wuxuu dhan ba isaga leh waxbuu saa u maxlalaya waxbuu saa u kala dabaraya waaba dilaal wuxuu colonelka og yahay ma jirtay waa dilaal nin dilaala de booliiska iyo amniga ma sugi kara ilaahay baan idinku dhaarshay reer Jabuuti de wadarki doonti kabiyoonkii booliiska jaajuurka goray ceebtaas saatal afnitres ma isaga leh maxiro booliisku xoriyahooga ha dhistaan meelahooga ha ka shaqeeyaan maxaa soo saaray ee sidii kuuliga bacadka afnitres lagu shaqaysanaya ragii amniga sugi lahaa caaq Ismaaciil haye waran booliisna waan ahaan jiray baadna leedahay taana maxaad noodan daada ugu tala galay ma adu lacagta kugu keenay haramuus biidin ku keenay ma xoogaa hada wixii xoogaa idin keenaad ka door bidaysaan idinku dalkan iyo dadkan bedel uma lihidin de wata caaq Ismaaciil marxaatigi wakaade waa lagula hor jooga hadaad adu la xisaabtami weyda anaga la xisaabtami de dadku galma hol wada guri maayo batada waa laga qaban dadka aygi balaqo ha dheeraatay ha dhawaato balaqo waa la qaban ku seexo ku soo toos batada in lagu qabanayo maalin dhow ku bixin maayo caaqode isaga lafiisiiba meelu cagaha dhigala oo cuskade isku doonibaad saarantii doonidiinina way dagaysaa xoolihii dalkana sidaas loo guranaya waa nin dhan oo colonel ayaa qandaraaskii dadka masaakiinta la siinay soo dhex qaaday oo ku shaqaysanaya ciidankii dalka oo ku shaqaysanaya baabuurkii dawladda oo ku shaqaysanaya batroolkii dawladda oo doonaya lacag cad oo buuran inuu qaato cantuuga weyna ilkaba kuma yaalin cagutuuga weyna intuu cantuugay wax muilka iska hagaajiyo sawada la wajhak a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim waxa soo kale wax marmarka qaarkood anu waan ka yaxyaxaaba ilaa inaad yaxyaxitood xishooto damiir yeelato adigay dadnimadaada ka muuqanaysa qofku markuu damiirka dibadda ka yahay dadnimana uu ka taa aad arkaysid inuu ka aradan yahay iimaanna uu ka qaawan yahay dawaka daawada waka reer Jabuuti waxaan idin sheegay wax badan baa idin dhimane daawada ninka aad ka baqaysiin ad colonel moodaysiin waa neef xoola ah waka lacag u booriyada wax kale uu og yahay male waa askartii kii shalay ku xabadeeyay ee dulmiga diiday rasaasta kula boobay ee gabood ku dhex dishay boqol kale oo canka ku ciil ku qaba oo farurta ku qaniinsan bahareeraha joogada magafi ku talagal gooray noqon anagu garan maaye ku talagal in la iska kaacelin ha dheeraatay ha dhawaato maalin dhow wala iska kaacelin ciidan kale aad ku tumanaysa sida doonto ka yeelayso laydinka yeeli maayo dalkan iyo dadkan calankan iyo ciidan shicibweynaha reer Jabuuti ee ciisheen aad ku tumanaysiin baale ee xoolahoogi sida ugu maartay ugu loolamaysaan ee ugu tartamaysaan inaad ku lacagaysataan dhaxala balama halin dhaqashana ma haystay baad ahayd batada maantana waxa tir milyaardheer baan ahay indacagaada xoolaha ka keentay waa la isweydiin aan ka socdo taa waxa ceeb kale